qodobka ugu horeeya oo aan isleeyahay wuu ku jiri karaa guriga waxa weeye in lamaanaha laga helo labada qodob ee ugu horeeya waxay yihiin is-ixtiraam iyo isu tanaasul. in la is-ixtiraamo qofku haddaadan ixtiraamba u haynin meel lama joogi kartid. qofka haddaadan ixtiraamba u haynin ma wada istaagi kartaan hal meel xataa. ixtiraamku waxa ugu muhiimsan oo qofka bini aadamka ah lagu wada dhaqmi karo adduunyaduna ku dhisan tahay weeyaan. isu tanaasulkuna waa waxa reerku ku dhisan yahay. saan sheegnay hadday dhibi timaado haddii waxa guriga ay soo wajahaan ama ay dhibaato timaado ma tanaasuli kartaa? ma ka tanaasuli kartaa adigu dhankaaga xataa haddii lagaa khaldan yahay? waxaa laga yaabaa markaa haddii lagaa khaldan yahay inaad u fahantaan wax weyn oo big deal ah ma ahan. ninkaaga ama xaaskaaga hadday kaa khaldan tahay waa u tanaasuli kartaa. waa noloshaadii, waa xaaskaagii, waa caruurtaada hooyadeed, waa caruurtaada aabahood. waa u tanaasuli kartaa. wax badan intaa ka badan waad samayn kartaa. hadday kaa khaldan tahay oo khaladkeedii aad ogaan weyda iyada tanaasul. hadduu kaa khaldan yahay ninkaagu xataa aad dareensantahay inuu kaa khaldan yahay laakiin jiritaanka guriga uu muhiim kuu yahay dul qaado dusha saaro u tanaasul. adiga anaa kuu tanaasulay. ixtiraamkuna waa wax muhiima oo lamaanu ku dhisnaan karo. qodobka labaad iyo qodobka saddexaad qodobka saddexaad iyo qodobka afraad isqiimeyn iyo isdhiirigelin. lamaanahaaga inaad qiimayso. maxaad ku qiimeynaysaa? wuxuu yahay, wuxuu qaban karo, wuxuu yeeli karo, wuxuu samayn karo, adiga wuxuu kuu yahay adiga ku qiimeey. lamaanaha ku qiimeey wuxuu kuu yahay. dhiirigeli markuu wax wanaagsan kuu sameeyo. dhiirigeli maxay ku dhiirigeli wax wanaagsan uu samaynayo xataa haddaan adiga kuu samayn oo gurigiina uu sameeyey ku dhiirigeli. hadduu maanta soo iibiyo wax carruurta ku ciyaaraan waxaa laga yaabaa inaad wax yar aad u aragto tiraahdo abi caanihii baaba ka go-aanay waxay ku ciyaarayaan ku yahay. may ku dhiirigeli waxaad tiraahdaa because ninkan wuu kula korinaya carruurta, gabadhaan way kula korinaysaa iyadaana kula dhashay. wax kastoo wanaagsan oo dhexdiina soo gala, wax kastoo wanaagsan oo idin dhex mara, wax kastoo wanaagsan uu sameeyo iyo wax kastoo wanaagsan uu qabto ku dhiirigeli. waa mahadsan tahay dheh. taankiiyo qofka wax wanaagsan bay tartaa. marka laguu keeno wax oo ama wax laguu sameeyo ama wax laguu qabto qofka inaad taankiiyo ku tiraahdo wax wanaagsan bay tartaa. sababtoo ah qofkaas muxuu helayaa wax uu berri intaa in ka badan uu kugu qabto. intaa in ka badan inuu berri kuu sameeyo isagoo ku qanacsan, isagoo oo happy ku ah, isagoo ku faraxsan inuu kuu sameeyo. qodobka shanaad iyo qodobka lixaad is-aaminaad iyo isku kalsoonaan. labadaba horaan soo sheegnay laakiin kalsoonida iyo aaminaad waa kala duwan tahay. kalsooni inaad lamaanahaaga ku qabto iyo inaad aaminto waa farqiga u dhexeeya. sida xalka qoyska iyo maareynta qoyska u kala duwan tahay. dad badan baa isku khaldan. dhibka qoyska in la maareeyo iyo dhibka qoyska in la xalliyo waa kala duwan tahay. waa wixii markaa taagnaa inaad dabar goyso. waa wixii markaa taagnaa maxay inaad xalliso keliya. laakiin maareynta muxuu yahay waxanba inaad meesha ka saarto. maareynta muxuu yahay waxanba inaad meesha ka saarto. sidaasoo kale isku kalsoonaan iyo is-aaminaad. waa inaad ninkaaga wax badan ku aamini karto waayo naftaadii baad ku aamintay uuna ku ilaaliyey.